Soomaaliya waxay leedahay ciidan cududiisu gaarayso 30,000 oo askari kuwaasoo isugu jira 15,000 oo u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo ilaa 20,000 oo ciidamada maamul goboleedyada ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dawladda. qiimayntii ugu dambeysay ee dawladda Soomaaliya ay ku sameeyso ciidanka dawladda bishii December 2017 waxay ahayd in ciidanku guud ahaan tiradiisu ay dhan tahay in ka badan 26,000 kuwaasi oo ku jira liiska dawladda. hase yeeshee tiradaasi waxaa ka mid ah ilaa 9,000 oo ciidan isugu jira howlgab kuwa curyaamay kuwa da'ah iyo weliba agoonta askarta. haddaba dhowaan ayaa howlgalka midowga Afrika ee AMISOM waxay qiimeyn ku sameeyeen ciidamada ku sugan maamul goboleedyada ee gacansaarka la leh kuwa dawladda federaalka. qiimeyntan oo nuqul ka mid ah uu helay barnaamijka galka baarista waxaa la sameeyey intii u dhaxaysay bilihii Maarso 2018 ilaa Janaayo 2019. qiimeyntan waxaa laga sameeyey maamul goboleedyada Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo maamul goboleedka Puntland. qiimeyntani waxa ay dhigaysaa in ciidamada ku sugan maamul goboleedka Jubbaland ay dhan yihiin 5,715 askari, kuwa ku sugan maamul goboleedka Galmudugna ay dhan yihiin 5,754 askari. ciidamada ku sugan maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la diiwaan geliyay waxay dhan yihiin 3,231 askari, halka ciidamada ay diiwaan gelisay AMISOM ee ku sugan Puntlandna ay dhan yihiin 5,248 askari. AMISOM waxay sheegtay in ciidamada la qiimeeyay ee ku sugan Puntland ay ka tirsan yihiin booliiska maamul goboleedka ee aysan ka mid ahayn ciidamada daraawiishta ee Puntland. AMISOM waxay qiimeyntan ku sheegtay in markii hore loo sheegay in maamul goboleedka Hirshabelle aysan lahayn ciidamo maamul goboleed, sidaasi darteedna aysan qiimeyn ka samaynin maamulkaasi. inkastoo haddana goor dambe lagu wargeliyey in ciidamada Hirshabelle lagu qiyaasay inay dhan yihiin 4,500 oo askari. ujeeddada ay AMISOM u samaysay qiimeyntan ayaa ku sheegtay inay tahay soo tiro koobista ciidamada maamul goboleedyada si loo fududeeyo in dawladdu ka kaalmayn karto dhinacyada la dagaalanka al-shabaab iyo inay gacan ka geysato qorshaha isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. si guud waxay qiimeyntani sheegtay in ciidamadani ay cudud leeyihiin, hase yeeshee kartida ay kaga hortagi lahaayeen al-shabaab iyo kooxaha kale ee hubaysan ay kooban tahay. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan weydiiyay sida uu u arko qiimeynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada. aniga hadda numberkaas waa okay, waa saas iyo ma aha mid lama dhihi karo, laakiin waxaan ogahay dowlad kasta inay leedahay daraawiish iyo booliis, laakiin waa aad ay macquul u tahay markii la isku daro numberadaas inay gaaraan numberkaas ay sheegayaan. waxaana aad iyo aad u fiican maadaama ciidanka xoogga dalka Soomaaliya la ogtahay tirada la isku raacay iyo heshiiska la galay musdeegtuba ku yahay. waxaa kaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu ku talagalaya waa ciidamada gobolada, oo markii lagu daro 20,000 ilaa 18,000 markii lagu daro waa garan kartaa waxaa tagaynaa 38,000 waa ciidan xoreyn kara. Paul Williams oo ah macallin wax ka dhigay jaamacadda George Washington University waxa uu dhowaan daabacay warbixin uu kaga hadlayo dadaalada laga soo maray dhismaha ciidanka Soomaaliya iyo caqabadaha hortaagnaa. waxaan weydiiyey marka hore inuu iga warramo wadamada 10kii sano ee la soo dhaafay isku dayay inay tababaraan ciidamada Soomaaliya. Over about the last 10 years, we've seen about 12 different countries provide various types of training and assistance. 10kii sano ee la soo dhaafay waxaan aragnay ilaa iyo 12 wadan oo kala duwan kuwaasi oo tababaro iyo taageero siiyay ciidamada Soomaaliya. markii hore waxay taageeradaasi siiyeen dawladdii ku meel gaarka ahayd, haatanna waxay siiyaan dawladda federaalka. waxay wadamadaasi kala yihiin iyadoon sababo gaara loo kala horumarinaynin: Burundi, Djibouti, Ethiopia, Talyaaniga, Kenya, Sudan, Turki, Imaaraadka, Uganda, UK, USA, Midowga Yurub, Midowga Afrika iyo qaramada midoobay. intuba waxay bixiyeen taageero kala duwan, waxayna tababar siiyeen ciidamada qaarkood. waxay kaloo bixiyeen qalab iyo talooyin qaas ah oo ay siiyeen ciidanka. tababaradaasi badankood waxay ka dhaceen dibadda Soomaaliya dagaalka dartiis. markii dambena waxaa loo soo raray gudaha Soomaaliya, waxaana ay ka socdeen Muqdisho. dhowaan ayuun bayna u sii wareegeen magaalo madax goboleedyada sida Baydhabo iyo Kismaayo. askarta xilligan u diiwaan gashan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 30,000 waxaa horumarkooda dib u dhacyo u keenay khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxda waddanka. waxaa kaloo caqabada ay ka yimaadeen hub la'aan haysata,
taasi oo ka imanaysa cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo mushaharka oo aysan si joogto ah u helin. sanadkii hore ayaa dib u dhac xoogan uu ku yimid qorshihii isku dhafka ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib markii madaxda maamul goboleedyadu ay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen dawladda dhexe isla markaana ay xiriirka u jareen. taasi beddelkeedana waxay maamul goboleedyadu ku hanjabeen inay samaysan doonaan ciidamo u gaar ah oo isku dhaf ah oo la dagaalama al-shabaab tiradooduna ay dhan tahay 5,000. khabiirka Paul Williams ayaan weydiiyey doorka khilaafka siyaasadeed iyo caqabadaha kale ay ku lahaayeen dhismaha ciidamada Soomaaliya. waxa kaloo aan wax ka weydiiyey Paul Williams in ciidamada dawladda Soomaaliya ay xilligan awood u leeyihiin inay mas'uuliyadda kala wareegaan ciidamada AMISOM. There's no quick answer to that, but the simple answer is you can't just train and equip a national army into existence. And that's because there's a number of key challenges. I think there are 3 of them really. The first is political. ma jirto jawaab degdega oo taas loo hayo laakiin jawaabta ugu sahlan waxa weeye kuma abuuri kartid ciidamo qaran inaad tababartid isla markaana aad qalabaysid kaliya sababtoo ah waxaa jira dhowr caqabadood oo waaweyn oo aan isleeyahay waa 3 tan ugu horeysana waa siyaasadda ta ugu muhiimsan waxa weeye waa inay jiraan heshiis siyaasadeed oo ay gaaraan hogaamiyayaasha waddanka iyo indheergaradka waddanka oo ah inay doonayaan dhismaha ciidan qaran. dhibaatada Soomaaliya waxa weeye waxaa jiray murano badan oo u dhaxeeyay indheergaradka siyaasadeed iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada. kala duwanaanshahaas aragtiyeed waxay suurtagelin waayeen in la isla meel dhigo istiraatiijiyad qaran oo dhismo ciidan qaran ah sababtoo ah halkii laga dhisi lahaa ciidamo daacad u ah waddanka waxaad arkaysaa iyadoo ciidanku daacad u yahay qabiil ama shakhsiyaad hogaamiyayaal ah. sidaa darteed tan ugu horreysa waa siyaasadda oo looga baahan yahay isku imaansho iyo dib u heshiisiin madaxda siyaasadda ee federaalka iyo gobollada inay ciidan dhisayaan. nasiib darro taasi ma dhicin. haddaba qiimaynta ay AMISOM ku samaysay ciidamada maamul goboleedyada waxay ku sheegtay in ciidamadani guud ahaan ay ku yar yihiin saadka iyo agabka daruuriga u ah ciidanka. qalabka ay haystaan ciidamada maamul goboleedyada qaarkood maba shaqaynayo sida ay sheegtay qiimayntu. waxaa sidoo kale aad u kooban baabuurta ay ku dhaqdhaqaaqi karaan. goobaha ay degan yihiin ee hoyga u ahna waa kuwa burbursan ama ku meel gaar ah. Generaal Jamaal Xasan Farey waa taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gedo. waxaana uu la socday qiimaynta lagu sameeyay ciidamada Jubbaland. waxaan si gaar ah wax uga weydiiyey dhibaatada cunaqabataynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso qalabaynta ciidanka haddii ay yihiin heer dawlad federaal iyo heer goboleed intaba. ma haystaan ciidanku taangi hoose asagu warkiiba ma jiro madaafiicda waaweyn oo sidoo kale gawaarida gaashaaman oo ama beebeeyada ama baabuurta kale oo gaashaaman saasoo kale ma haystaan. hubka lidka taangiga la yidhaahdo oo garabka lagu qaato oo garnaylada sida qoryaha baasiyaasha iyo qoryaha milaanka iyo strinka iyo hubka la yidhaahdo ma haystaan iyo gacmeedyada iyo hubka la midkaa. marka waxaasoo dhan ciidamadu waa ka maqan yihiin. sidaas darteed had iyo jeer dhibaatada goobaha dagaalka oga timaado kuwaasa ugu weyn inta badan. waxyaalaha ay haystaanna waa qalab u badan qalab gaboobay oo duug ahoo xilliyo hore la isticmaalahayay ama dawladuhu xilliyo hore ay soo saareen oo gaboobay u badan yahay wax hadda gacantooda ku jiro oo oon lahayn dayactir iyo say baasi midna. marka dhibaatooyinkaasoo dhan ba weeye kuwa ugu daran oo hadda ciidamada caqabadaha ku ah howlgalladoodana wax u dhimahayo inta badan. haddaba markii ugu horreysay muddo sannad ah ayaa saraakiisha gaashaandhigga ee Soomaaliya waxay galka baarista u sheegeen in bisha dambe ee Abriil ay bilaaban doonto isku dhafka ciidamada federaalka. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Generaal Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaa waraysi khaas ah oo uu siiyey galka baarista ku sheegay in la xarayn doono ururkii ugu horreeyay ee isku dhafaya ciidamada federaalka bartamaha bisha Abriil ee soo socota. arrintaasba waa ka tagay arrimo dhaqaale waxay laakiin hadda markaan kuu sheego hadda waa lagu heshiiyey kulliyadii jaalisiyaad la dhihi jiray baa loo qorsheeyey
aniga intii ugu horreysay waa saxeexay ciidamadii ugu horreeyey 20 iyo 72 iyo 12 April waxa way soo magacaabeen disaskii waxaa dhiman Kismaayo iyo lixdamaad kaliya ka dhiman taa ururka ugu horreeyay in la helo oo maanta meeshaas lagu xareeyo laakiin faraq baa u dhaxeeya qaybaha ciidanka xoogga dalka gobolada jooga iyo maleeshiyada iyo ciidanka maamul goboleedka ciidan maamul goboleeda oo lagu dhafayo kuwa xoogga dalka ma jiraan miya waa jiraan laakiin hadda waxaan horumarinaynaa ciidanka xoogga dalka marka hore isku dhafno oo ciidanka xoogga dalka Soomaalida isku dhafan uu tago gobolka asaga markaas gobolka uu ka noqonay miisaan in ay dhici karto gobolkana inuu markaas dabadaas dhaco qiimayntii ugu dambeysay la sameeyay operational ready assessment la sameeyay September ilaa December 2017 qaybta 12aad kaliya ayaa waxa la yiri ayaa qabiilo kala duwan ka koobnayd ciidanka xoogga dalka inta kale qabiilo uma badnayn qabiil kasta laga heli karin haruun waxay ku xiran tahay deegaanka ma wax Soomaalidu rabto for example hadaad magaalooyinka Soomaaliya tuula fiisa مثلا tuula ciidanka qoray waxa dhici tuula marka ku qorto tuuladaas hal reer uu u badan yahay marka ciidanka aad qorto tuula reerkaas u badan laakiin ma dhici karto hal reer oo kaliis gobol bila marna ma jiro Soomaaliya hadda ogtay ma jiro hal kala badnaado laakiin idwalba way ku jirtaa oo gobolka jirta qiimayntii lagu sameeyay ciidamada dawladda federaalka sanadkii 2017 waxyaabaha lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa in ciidamada dawladda federaalku aysan wada hubaysnayn isla markaana aanay u dhammayn qalabkii dagaalka halista ugu weyn ciidanka waxay ka haysatay oo lagu ogaaday qiimayntaasi in 70% oo kaliya ciidamada dawladda federaalka ay hubaysan yihiin haddaba tan iyo xilligaasi wax ma iska bedeleen hub la'aantii haysatay ciidamada qaarkood General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho ayaan hordhigay su'aashaas askar abuuraysan weli way jiraan sababaha ugu kooda ka badnaa waxa weeye laba sababood anigu kale saar koow dalkan wada qabteen baa taa labo dalkan dhaqaale badan ma laha oo intaas oo hub soo goto onta marka September waxa dhacaysa in xoogaa soo goto xoogaa qori xoogaa markii laga soo goto soo gadanaysa 300 dad muuda gaarsiin ciidanku ka badiyay marka September way dhacaysaa laakiin adi inde ciidanku waa weysmaya isku ma hayo marka imisa hadda ku qiyaasi lahayd 30% kiimay taaganta inta hub la'aanta mise way ka yartaa ma ciidanka badana ugu haysta laakiin ciidanka soo ogtahay maalin walba la qoray marka kala qoray maanta huma haysto waa gartay laakiin dawladdu ma waxa u weyday AK47 isla basaareeyay mid kale maanta hadaad soo qorto kun kaasi ah hubayso beeri isla sitamaanka dama another 500 kun kala u baahan tahay sama way ku qaadi marka waxa weeye ciidanku waxa la yiraahdaa askari kasta oo fronta u tala gashay waxa laga rabaa inay 5 askari ay daba socoto soo dagaalamo waa 5 askari hadaa la buuxiyo askari ma dagaalami karo xageekii kii saas u hayay kii rasaas u hayay kii caafimaad u hayay kii maamulka lacagta u hayay kii shidaalku ay shantaas waa in la helaa soo ninkan uu hal qof soo dagaalamo dhawaan waxaa gelgelay haddaba ciidamada dawladda Soomaaliya cabasho ka imanaysa unugyada ciidanka qaarkood kuwaasi oo sheegaya inaan mushahar la siinin muddo 4 bilood ah ciidamadan qaarkood ayaa ka soo baxay saldhigyadoodii Isbatoore Cali Dhuux Shaaweeye waa afayeenka ciidamada ka soo baxay furinta dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe waxa uu galka baarista uga warramay waxa ay ka dacwoonayaan adiga shakhsiyan imisa bilooda mushahar ka maqan 4 bilood imisa garaamo cunto ka maqan 4 bilood idan lamid marka lacag intee leeg weeye marka la sugayo raashinka iyo mushaharka ka maqan wallahi mushaharka iyo raashinka macni hadda aniga wax ku tal hadda aan ku siin kara malaha mar waxay soo tuurayeen bil 100 mar 130 mar 128 oo mushaara mar ma isbeeso oo adiga waxay rabaan ay soo tuurayeen 15 hadda waxay rabaan soo tuurayeen wax ku tal hadda kuma siin karo yani mar waxay nala siino ku qanacsaneen qoys ma leedahay caruur ma leedahay reer xaas ma leedahay caruuraan leeyahay aniga 4 caruuraan leeyahay xaasaan leeyahay hadda cid kalena kuma tiirsaniya xoogga dalka uu baa ku tiirsanahay meeshaas aan wax ka dhiisaawo nolosha ka maareystaa caruurtaada da'doodu waa imise iskuul ma dhigtaan
iskuul iyo waxaasa ka hadlaysaay adigu meesha wadanka waxa waaye waxa la cunayo raadiho adigu iskuul iyo ka hadla iyo meesha waxa ma yaalin Haruno ma la idin diiwaan geliyay oo ma diiwaan gashan tihiin mushaharkiina meelaha la idinku soo dirayo iyo diiwaankiina dhan ma la idinka qoray waa nagala qoray meeshaan Haruno waa la socotaa Soomaaliya waxa waaye taliye xoog magala magacaabo wuxuu sameeyaa yani tirakoob mid kala imaanayo oo wixii waxba kama jiraan tirakoob kale cusub mid kala imaanayo tirakoob cusub hadda kombiyuutarada ama buuxinaba waa gartay waxa laga yaabaa iyaga inay ku doodayaan ciidan hadduu jiro mushaharku ka maqan yahay waa ciidan aan diiwaan gashanayn ama waa ciidan mar walba aan laga helin xeradii ama meeshii u ahayd saldhigga jawaabtaada maya intaas ma aha fiiri xooga dalka waa taqaanaa ma aha in mas-uul inuu media soo istaago yiraaho wax mushaar aan siinin oo dhiman ma jiraan inuu ka dhaha ma aha ciidanka xooga dalka waxaa rabaa inuu yimaado baraha ay leeyihiin oo yiraahdo ay adiga magacaa waa qaadatay adiga ma qaadan oo qabso intaasaa laga rabaa maaha inuu media istaago yiraaho annaga waan siinay waxa qaylinayna waa beentood taas annaga naftayna ma qancinayso dadkana ma ku qancayaan waxaa kaloo jirtaa laleeyahay askar dhufayskooda intay ka baxaan waardiye u noqda nin wasiira ama xildhibaana markay doonaana yimaada saldhigga marka kalena dad kale la shaqaysta iyo hay-ado kale maya taasi ma jirto haddii ay jirtana ayagaa ugu waaweyn oo sameeyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo yani ayagaa laga rabaa in yani marka hore meesha laga soo saxo mugta halkaas laga soo saxee asagaa macnaha marka hore sameeyo oo askarta qaraabadiisa qorto oo yidhaahdo imow xilaale magacaabay xaggaa kasoo kadibna inuu baxo taliye xoog iyo baanduulo xoog usoo maro yidhaha askarigaas aniga ha laygu qoro shaqo leexsan laygu sameeyo sidaasay ayagana ku tagaan taliyaha ciidamada Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi Indhaqarsho oo aan waraystay ka hor inta aysan ciidamadu ka soo bixin furimaha dagaalka waxa uu barnaamijka galka baarista u sheegay in mushaharka ciidanku ay qaataan aanu ku filnayn hadda mushaharka ciidanka dawladda sida u timid aad bay wax isku taxalluqsan ciidanka mushaharka sida helo marka ciidanka mushaharka waa helaa oo waa la siiyaa mararka qaarkood for technical reason unit baa daaha ama magaciisa baa daaha laakiin lacagtii meel bay taadeen lama waayo ladhihi maayo lacagtaadi ma taalo marka ciidanka mushaar waa qaataa mushaarada meesha taala waxa ku filan yahay this is the issue oo loo baahay in laga hadlo marka mushaarka waa la siiyaa laakiin mushaarkaas mid ku filan ma yahay askariga Soomaaliya aniga waxaan qabaa aasitaliya ciidanka xoog dalka mushaarkaas kuma filna sababta ku sheegay askariga Soomaaliyeed $130 buu leeyahay $130 magaalada uu joogo ee uu ku dhashay oo relatives joogaan oo adeerkiisa joogo ee gudihiisa waqtigiisa uu ku noolaan karo laakiin haddii laga bedelo uu ku noolaan karo meel wax soo deysada male meel ay wax siinaysa meel cid yaqaanaba male marka isku dhabkii waxbay u dhimaysaa in askarigu uusan haysan shaar ku filan haddaba dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa laga doonayaa inay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya u dhammaystirto qalabka iyo agabka ay u baahan yihiin iyo in sidoo kale la siiyo gunooyinka iyo mushaharkooda laguna siiyo wakhtiga ay u baahan yihiin si ay dawladda iyo dalkaba uga difaacaan cadowga